oo sawaaydi la soo dubay waa dib baa loo celiyay raggii la soo waaray inamada yaraa la soo waarayna intii la baabiyay ma intii kalena dib baa loo celiyay marka aniguna waxaan horta aan mahad ballaaran u celinayaa oo aan maanta aan leeyahay guul baad gaadheen oo aan maanta leeyahay waan idinka baqay ciidankayga xoogga qaranka baan u sheegayaa cabdiwali cali gaas afka allah kaama gooyo geesi dhalay waa ma fahantay ciidanka daraawiishta ee Puntlandna waxaan leeyahay ee maanta ku jira meesha la yiraahdo furinta waxaan dhahay u joojin raggii waa jabay ha u joojinina soo ciribtira soo qabtaan leeyahay aad baan ku salaamayaa gabadhimaana uga tagay Puntland hadaa tahay ha soo qorin soo qabo mar raba laba qof reer Puntland ay doodaan waxaan u baahanahay qof Soomaaliland haddii uu ku jiro qof Soomaaliland saynabay soo qaban leedahay saynab waxaan ku codsanahay Facebook ka bax ku soo laabo kaamirada ma ku shaqeynayso Facebook ka bax ina Soomaaliland tahay waa lagu soo qabanayaa ka bax Facebook dib ugu soo laabo adoo raaliya marka waxaan u sheegayaa hablaha Soomaaliland iyo ragga Soomaaliland inay soo qaba soo qoraan Facebook qofkan kaamirada u shaqeyn ka baxan leeyahay u sheegay kaamirada seexiya telefoonka saan ku qabsamaa saan kuma qabsamo kaamirada seexiya abwan adna ku soo qabanaya abwane waa ku soo qabanaa mar dhow hayga tagin abwane wax badan baraba inaan ku weydiiyo telefoonkiina seexiya marka ilhaanay markaan ku soo laabto waxaan rabaa inaan ku weydiiyo hadalka ka soo baxay Muuse Bixi Cabdi oo ahay in ciidamada Soomaaliland dib loogu celiyo Gambara Puntland ay joogto Tuqaraq Cabdiwali Cali Gaasna uu diiday professorkii arinta noocaas maxaa leedahay codkaada kor u qaad adoo raaliya codkaada kor u qaad may maqash haye may maqashaa hadda waan ku maqlaa kor u qaad laakiin dadkay ku maqlaan shacabka ha sax walaalo waxaan ku sheegayaa walaalo ilaa shalay saasay ku calaacalayeen oo waxaan arkayaa warsoodiyadooda waaweyn sida harwanaag news iyo iyagoo ku soo qoraya musabixa arrintaa yeelay laakiin arrintaas ay iyagu la yaaban yihiin ka hadlayaane waxa loogu talagalay bahashan ciidamada tan inaanay burco ka sokayn baa loogu talagalay inta kalena waa loo kulaysiin waxaan ii kaalay sayna may soo dhawow salaamu calaykum waa dhawahay walaalo walaal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo inaan Soomaaliland tahay marka waa dood marka ku waraysa ka qayb gasho qabiilkaaga inoo sheeg adoo raaliya isaaq baan ahay isaaq ay ka tahay damay inta ka badan ma socon kareen hadda socon karin doodda qof kala siinaa oo isaaq oo Soomaaliland because qabiilka waa afar inaan weydiiyo qofka afar inaan weydiiyo waay haddii araale ka lagu qasbayo marka doodda marka tagay isaaq baan ahay habar jeclaanahay isaaqna waan ahay habar jeclaanahay inta habar jeclaa ka tahay my goodness afar baa loo baahan yahay walaal dooddu afar baa loo baahan yahay mulro waan la yaqaano qofka inantan waa inaan warsan geliyo waa la yaqaanaa qof kasta qabiilkiisa waa la weydiiyo doodan ka qayb galaayo caawa sheeg qabiilkaaga waa la qoraa habeenba qabiilkaaga lagu weydiinayo okay Musa Bakar Biciide landeeraan ahay maxaa baan isu ilaahay bay ma qarina maxaan isu qarinayaa okay ilaahay ku qarin aad iyo aad ma santahay marka ilaahay ku socod marka ku socod doodada marka ilaa shalay too waxay ku qorayeen website-yadooda waaweyn sida harwanaag news iyo oo cadeynaya inuu arrintaas ogolaaday inuu Gambare ku celiyo ciidankiisa laakiin dadka reer Puntland ma ogolo warkaas war marana ma aha ciidankan waa in meeshii loogu talagalay deegaanadoodii ay dib ugu noqdaan marka ogolaanayo waxyaalaha noocaas jirjileecaas iyo Gambarahan degaya Gambara awal raggii markii horeeto uu meeshan soo gaadhay raggii markii horeeto u sahlay baa ka horyimi haddana ka horyimi awalba iyagu xoog kumaysan iman si kalena xaragana kuma iman xoogna kuma iman waxay ku yimaadeen wax dad wado rag meesha u dhashay wadeen ragina waa ka hor yimaadeen waxayna taageereen maamulkooda Puntland marka Muuse Bixi loogama baahna inuu maanta la soo shirtago lagama filan inuu la yimaado gabadha ku celinaya waxa laga filayay inuu yiraahdo ciidankii waa la baxaya kaliya laga sugaayay muddo 4 beriye ku maqnaa wada tashi marka wada tashigiisa wax laga sugayo inuu yiraahdo ciidankii waa la baxaya laakiin wuxuu ku soo warceliyay inuu ciidankii Gambare geynayo okay ilhaani haliga ku istaag marka ilhaani istaag marka saynab assalamu alaykum wa alaykum assalam waxaan salaamayaa marka hadalka Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland warqadu soo qoray madaxtooyada Puntland oo ciidamada Soomaaliland in dib loogu celiyo Gambaro ciidamada Puntland ay joogaan Tuqaraq
ciidamada la kala qaado saas lagu heshiiyo arrimaha noocaas soo aragtaa horta waxaan salaamayaa adiga iyo shacabka reer Somaliland oo dhan baan salaamayaa FIFA Somaliland baan leeyahay arrintaasi waa arrin wax kama jiraan ah oo ay jeebkooda ka samaysteen odaygan Cabdiweli Gaas ee depressionka kiniinka depressionka qaata iyo warqadaas soo qortay baan aaminsanahay hadiiba ay wax ka jiraan waa warqad uu isagu soo qortay baan leeyahay halkan waxaan ka maqlay dumar cataabaya oo caayaya Muller oo kala tirinaya waa gaal wixii qoraalka saynaba yada maqlay ayaguba khaniisyadooda wataan waa sugtug haye deewkaadi afka hay qabanay ayaguba khaniisyadooda wataan annagu gaaladayada madaxay noo saaran maya wixii commentiga ka baxay laakiin wixii caadi aan ka hadalno ku soo saynaba maxaa tiri walaal macnaha wixii qoraalka hoos ama ma aqriyo marka waxaan ka codsanaa qoraalka waxa soo arsay ma qoraalba ma aha meesha ka leeyahay maya arrintaas waxba kama jiraan runtii anigu waa bil Ramadaan ma jeclina idhaahdo reer hebel la soo laayo reer hebel dadku hay islaayaan reer hebel baan iska soo celinaynaa walaalo ana qof muslimaan ahay runtii cidina dhiigoodu daadato ma jecli laakiin se wixii waddankayaga noogu yimaada annagu waxaanu nahay jamhuuriyadda barakaysan ee Somaliland dawladdiisa yaad bare aanu la dhisnay aanu calanka u keenay aanu annagu wax ka soo dhisnay maxay ahaydey awooday lahayd adogeyd ayaanu cagaha dhulka uga qaadnaanu qalibnay waaba macadalla dawlad yar oo lukaneeca ku tukubaysa oo maxay ahaydey dhitinaysa oo ula booca ku tukubaysa oo maxay ahaydey maalin walba saa maaragtay u qarxaysa annagu waa ka xunahay dhibka ku dhacaya dad waxaanu nahay calool wanaagsan wanaagga aanu haysano maaragtay qalbi wanaagga iyaga ayaanu horumarkaa kusoo gaadhnay iyo daacadnimadayada marka dawladdiisa yaad bare ayaanu caana u kaban macnihii aan waxba nagu qaadan inaanu qalibno maxay nagu qaadanayaan annagu maaragtay odayga yare Cabdiweli bari wiilyadan ka maqlaaye ya maxay nagu tahay oo ola baaca ku kubaysa odayga yare maxay ahaydey jooga madaxtooyada Amazon ilaalinayso haddii uu ayaga hubka soo siiyey intaa xoogaa ka dhiganayaan maaragtay ay u haystaan inay wax qabsan karaan maadaama hub yar u soo dhiibay waxbana ma qaban karaan faanka ay iska daayaan reer Finland dumarkii hadda halkan mid ka hadlaysay baan arkayo caytamayso eedo ayay baan leeyahay garaabada ha ku margan baan leeyahay garaabada ha ku marganay Somaliland waxba uma ogide iska naso garaabadana ha ku margan Somaliland afka ka jeedo Somaliland waa dawlad powerful ah waxba kama qaadi kartiin faankiini aad caanka ku ahaydeen ee leedinku dacaayadeyn tiray Facebook bay afku xooglayaal baatihiin waxa la dhahaa reer bilaash xaytaa la yiraahdaa muxuu ahaa faankii ay caanka ku ahaayeen reerkaasi reer Puntland baan reer Puntland faan bay faankii un bay Facebook la soo fadhiisatay anagu ma faano dadka bilaadankaana dhiigooda xalaashan mayno laakiin wallaahi annaga haliyeeyaa naga dhashay midda kale Somaliland sidii North Korea laga qaylinaya Somaliland haddaanay powerful ahayn wadinka ka wada cabaadaya ee jeegaanta ku soo gabanaya jeegaanta ma jeegaanka ma aha qarannimadayada ayaad cadow ku tahay qarankayaga ayaad la dagaalamaysaa waxba jeegaanta ku soo gabanin baan ku yiri dhagahaaga fur islaanta garaabada ku marganaysay marba heeda guraysaa waanu ku fahmaynaa marqaanku yaanu ka tusin Somaliland baan ku yiri iska naso ayeeyo tusbaxaaga soo qaadaan ku yiri mullarna hadduu gaal yahay khaniisiintiinaba dhabarkaa ku sidatiin annagu gaaladayadu madaxay noo saaran tahay FIFA Muller waan ku salaamayaa kulliga waa idin salaamayaa muxuu ahaa mudane Muuse Biixi aaba Muuse Biixi waa haliyay qaran nin soo jeesta ma aha waxa ciidamada soo majeestayaasha ayaa naga dhashay waxaan idin leeyahay garaabada iyo faanka iyo khamriga halka la fadhiyo ka soo caadiya okay saynaba marka waan ka baxay walaalo maya waan ka baxay doodaydi waan dhibtay koran bay soo galayaan aad ku salaamaya waad ku mahadsantahay okay assalaamu calaykum okay inantii waa ka baxday ku soco marka ilhaanay qof waxa ilhaanay waxa idinkaadi qof kale Soomaaliland aan doona haduu diyaar yahay inaan soo qabanno ilhaanay mata adigu Soomaaliya digto marna garaabada ma taqaanaa aan ku macneeyay garaabada waa qaad ka qalad oo iyaga cuna iyaga ku soco waa koodi
maraykanka laga isticmaalaa garaabada marka dalka maraykanka laga yaqaanaa iyo yurub garaabo waa qaadka caleenta la qalajiyo waay garaabada horta iyo qaad wax caan ku ah waa la og yahay khamri iyo gaal iyo khaniisna waaba isleeyihiin iyadaaba sheegto tirgaalkayga madaxaanu ku sidanayo dee gaalkooda iyo khaniiskooda waa madaxay ku sitaan oo gaal iyo khaniis waa isleeyihiin oo anigu kuwaa u geli maayo dadkaas waa dad islaamnimada ka tegay khaniis iyo gaal toona dooda kusoo laabo gaalana nooma hadashoba qofkii fidmoobo gaal noqdo dee waa si u qofka waxay dhikaadii qof kasta Soomaaliland soo qaba soo qor waxay dhikaadii ilaahay qof kasta Soomaaliland soo qaba soo qor soo qaba marka dhado Soomaaliland raacay soo qaba marka dhado maadaama dad qof dooda ku jiro qof reer Puntland anigu dadka ma kala aqaano inaad tahay Puntland inaad tahay Soomaali weyn ma kala aqaano markay dooda ay qof Puntland soo qaba soo qor Soomaaliland banahay ku soo ilaahay abwaanka soo qabatida aad la balabaysay qof kale na hoos oo kale marka ku soo ilaa abwaanka ka arki doona insha Allah ku soo uma doodno anaga qofkii fidmoobo gaal noqdana waa suu gaal u noqday idinka gaaladiina wata waa runta idinka ilaa iyo xilli wadan jiray ilaa iyo xilliga Ingiriiska gaaladiina daba yaaci jiray taas been kuma aad sheegin oo adiga marxantigii furay qaadkuna iyo garaabana inaad gabadh ku caydid adigoo gabadh isaaqa inaad gabadh kale hartiya garaabo ku caydid waaba dee waa wax lala yaabo waa iska akhrisadaan waa iska adduunyo garaabo waa tiini laakiin muuse biixi isagaa gardaroolaa isagaa soo duulay khasab buuna ku noqonayaa khasab sanduuli wax baryaa meesha ma jirto markii horena wuxuu ka faa'iidaystay haddana sidiisii buu ku noqonayaa meesha tana wax xuduud la yiraahdaa ma jirto ingiriisku dhulkan ma maamulin nin walba waa ogyahay ingiriiska caasimadiisu sheekh bahay hello taayikaadi abaan aadan ku salaamay soo dhawow ilaahay soo gabagabay awaanka soo galay waa ka qaaday abaan soo ilaahay ma maqashaa waa ka baxaya walaal abwaankii baa ku soo galay Soomaaliya abwaanka soo galay ku soo gabagabay marka waa soo gabagabeynaya waxa leeyahay ingiriisku waagii horeeto uu dalka ka soo degayna maxay meesha uu ka soo degayna ma ahayn dhul harti meesha uu xukumayayna ma ahayn dhul harti markii horena wuxuu fadhin jiray meesha la yiraahdo Sheekh baa caasimada u ahayd markii dambe tan Hargeysa caasimadu noqotay idinka u gabiyo yiri oo ingiriiska wax asaayay ma qaban gabagiye xagee ka dhukada marka hadda nacagahna ka kuwii nida waxaan islahay kuwa awowayaashin haday dhukadeen kuwa waxa uu ahaayeen wax la rabay inay dhahaan oo balaaya ku dhukatay laakiin wali hadaa dhukanaysaan oo leedahiino meeshii ingiriisku lug saaray baa anaga okay way marka ilaahan aad baan ku salaamaya ma joogo waaye ilaahanay haday maqlis aad baan ku salaamaya assalaamu calaykum meeshu caqdiga hadaad raadinaysaan Soomaaliya oo ilaahanay soo gabagabay marka laba qof reer Puntland kuma ay kare hawshu waa soconaysaa muuse ciidankiisa waa la baxaya aad baan idin salaamay assalaamu calaykum okay abwaana ma maqashaa abwaana waa ku salaamay waan salaamay abwaana waxaan rabaa su'aasha ugu horeysa inaan ku weydiiyo kadib markaa su'aashaas ka jawaabto 5 daqiiqo kadib ayaan leedahay intuu qof Soomaaliland ka soo galayo su'aasha koowaad waxaa waaye madaxweyne Muuse Biixi oo waraaq qoray oo u qoray madaxtooyada Puntland oo dhahay ciidamadiisa inuu ku celin doono Gambara professorkani waa diiday Cabdulle Cali Gaas ahay wuxuu dhahay heshiiskaas ma rabo dagaalku waa soconaya maadaama Muuse Biixi waa nin mujaahid oo dagaalamo iyo nin professor oo qalinka jaamacad kaga soo baxay maxaad is dhihi kartaa arrimaha noocaas maxaa kaaga baxay shan daqiiqa haysta waa ku soo laabanaa doodaada wado banaanka u baxa ku soo laabanaa 5 daqiiqo ku soco kadib markaan soo laabto qof baan ku soo qaban doonaa insha Allah warka soo galay waxaan idin sheegayaa khiyaarta iyo asxaabta meesha ku jirta abaan waxa isu alo sultan sultanka waa soo galay okay sultanka ay soo galay sultanka ku soo qabanaa waxa isu abaan kadib 5 daqiiqo ku bilaabanaysaa 5 daqiiqo alo sultan sultan marka soo dhawow abwaanka hadda soo galay adna soo gashay marka waxaan rabaa 5 daqiiqo markuu dhameysto anaa microphone ku siinayo nin dulqaataa tahay abwaana ku soco sad u aragto 5 minutes baa haysta abwaane ku soco insha Allah khiyaarta waxaan idin sheegayaa ama dhammaan asxaabta meeshaan ku jirta waxaa la yidhi ninka soo socdo warkaagu waa kaa soo horreeyay
su-aashan horta la weydiiyey wax cusub ama aniga aanan eegaynin ama dadkuba horta aysan eegaynin ma aysan ahayn waxaa la yidhi arkaay iqariyaay baa ku xigta maamaa kaloo soomaaliya ayaa waxay ahayd ugaadha halka ugu orodka gaaban baa ugu hor oroda maamaadaas waxay la mid tahay ugaadha marka uu bahal ku dhex dhaco ama bahal didiyo midda aan mataqaanaa aan loo taag helin markaaba oroda ugaadhi kale inta ay daaqaysa sii oroda baa ugu orod gaaban oo iyadaa gaabisa taas marka ugaadha la leeyahay wax kaste oo isshabaha waxa weeyaan geedkiisa fulayga ah ama geedkiisa wax isku og ama geedkiisa aan kalsooni iska qabin baa wuxuu yahay midka aan mataqaanaa inaba dulqaad aan lahayn ee orodka badan oo dhibta badan marka dambana ay qariyaaya soo gaabiyo orodka dhinac kale haddaan ka eegno maamaa kaloo soomaaliya waxay ahayd aarka ciya iyo aarka aamusa midkeen laayaansan ka aamusay ahayd waqti badan marka waxaa ciyayay muuse bixi laakiin hadda ayuu aamusaya waana aamusayba talabaad waxaa la yaab ah midda haddaan macnaha intaa jawaabtaa kaga gudbo waxaa halkaa ku cad arkaydii qariyaydii in hadda la hayo taa haddaan intaa kaga gudbo waxaa la yaab ah wuxuu yidhi hashumaanka gadama masaar bay liqday horta annaga dadkaan meesha aan ka wada doodayno ama meesha ku jira inaaban wada hadallabaaba horta wax aad iyo aad mataqaanaa la yaab u leh ah macnaha ma u qalanno sababta oo ah dad islaantoodii iyo gabadhoodii iyo waxa weeyaan shaksi kasta oo iyaga ka midii wax faan ku salaysan oo been ah oo qof kasta oo meesha ku jira uu arkayo inuusan jiro waxaan qiimo lahayn iyo waxaan macno lahayn oo faan ah tusaale ninkii hadda meeshaan ka baxay xaliyaala wuxuu shubayay faam aan ku salaysnayn dhinaca caqiidaha haddii laga eego waa dadkaa gaalnimada iyagu qiranaya waa dadkaale koofil jannadii ilaahay ha loo geeyo bal maxaa marka koofil iyo what's different koofil iyo haddiiba uu leeyahay jannadii allah ha loo geeyo sayid cabdillah xasan allah loo cadaabo uu leeyahay halkaa waxaa ku cad dadkan annagu aan la hadlaynaaba in aynan mudnaynba horta in lala hadlo eray faan ku bilaabanaya faan buu ku bilaabay faan wuxuu kaga bilaabay telefoonkiisa oo maanta dunidu ay telefoon ka tagtay daruuraha la iigsanayo telefoon maxaa qiimaa uu leeyahay kan waa telefoon kan waa telefoon kan waa telefoon kan waa telefoon hadal wuxuu ka bilaabay waxaan haystaa buu ka bilaabay iphone waxaa ka bilaabay buu dhahay iphone 8 baan haystaa wili iphone 8 plus iphone 8 plus hadduu ku faanayo kan aan kala hadlayna hadda aanu qadka ugu jirno macnaha waa faanka macdaradiisa ereyga uu ka bilaabay wuxuu ahaa iphone 8 plus baan haystaa hadduu kan ka hadlaya iphone 8 plus iphone 8x baa ka dambeeyey kan aan kala hadlaya waa tusi karaa saakiin kan ha arag kan aad aragto oka wax walba u shaqaynaya waxa weeyaan halkaas iska yaala habeen iyo maalin waxa weeyaan waa kii marwada kuwii kaloo ka badnaa oo noocyo isagu uusan garan karin oo iphone iyo waxaan aan ahayn oo cid kale lahayn oo sawirkayga saaran yahay waa kan waa mid kan walbaan u tusi karnaa waa mid aan shaqaynayna kuma jiro kan aan kala hadlayana aan hadda idinkala hadlayana waaba aragtaanba oo waxa weeyaan dee anoo kuwan heli kara halkaa idinka tusi karaa lifeka aan daawanayo aad halkaa uga jeedaan saaxiibkay oo fadhiya kan kaamiradiisaan idinku qabanaya waa kaan idinkala hadlayo oo aniga sawirkaygii uu muuqdo ama gacantaydii iyo kan kale macnaha faanka meeshaa ka bilaabanaya telefoon adduun laiskugu faano
baa wuxuu ku soo dhammaanayaa in haddana dawlad baan nahay madaxa dabada loo soo geliyo arkay qariyay baa ka dambaysay ogaadha halka ugu orodka gaaban abwaan waa ka dhamaatay marka aan lahaw maanta go waaye sultan mi maqashaa aad iyo aad ku salaama sultan doodan ka daba geenaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo UN-ta iyo Puntland waraaqa u soo qoray oo ciidamada Soomaaliland loo celinay Gambara kuwa Puntland ay joogayaan Tuqarraq waraaqdaas ayaa soo baxday arrimahan Muuse Biixi dagaal buu ahay Cabdulla Ali Gaasna nin professor oo qaranka ku dagaalamo waay professor jaamacadda soo baxay si waragta arrinta noocaas iyo adiga ma aragtaa adiga ku khaldanna waxaad ummadda u sheegay adaa ku khaldan ma aru waxay jiraan ka sakeeya aniga sultan waxay taagan baan ka hadlaa aniga ما واحد ما بتهجنبه فيصل علي ورا بشلو قدام بيسولها أريك تقرب وما يجوجي بلون واي وكذا أبوانا كسرة عشان تصدق عنه أبوانا لا العو كسر عشان ضايع شلت هلا مركو قدبين إياه إلا حتى ستح مع المقبل كتب هالليين وقول نين بالله مرة يا أوجو فيصل علي ورا إنه اللي بحد لي سافرت كوجو مركز هذا كله واحد كله ضايع دبا الله بنيا وارلا كسمايا الله سوى سعنيا فيصل علي وراب باش ممكن تشوفي شو اللي تكرر هدي أي فرق قاتيان إنه كان يرى وش بوصل له أنت مسبح هنا قروب وشجبة إنه سلاح اللي برسها قبل كجرو وحلا الله يعني كان فرماج هنيو باش وح الله الله يا ودارات يساق لا جابا إلى شكل سنة ومرتيا ayaa aniga la sheekaysanaya marka dhan walba ka darbaaxaya doontii uu ku yimi ayaan saaraya anigu waa la yaqaanaa baraad hargeysaan haystaa daaro armigaalaha shir armigaaladaasaan ka imaadhaa laandheer anigu waxaan leeyahay hargeysaan ka yimi meeshii ugu horreysay calan laga taagaan ka yimi waxaan ku idhi maanta anaa soomaali ugu nolol fiican maanta kan yare hor taagan anaa waxbara anuu af soomaaliga iga bartaa xataa ma dhihi karo ari ma dhihi karo ari wax walba anaa soo bara markaasuu koonfur faana muqdisho maanta muqdisho hoos tagaaniyo ninkana aniga iga sheekeynaysaa ninka hawiyuu hoos tagaa aniga ninka igu soo xiga Somaliland dheer wada amni bisma jirta basaas xun baa dheer maanu basaasita waana basaasyo malay maqla walaal maqla sultan ku soco marka niyo ala kulli xaal ninka ila sheekaysan kara ninka muqdisho la ila sheekaysan because muqdisho ay dhiganta hargeysa iyo muqdisho isku mid ah inankan yari wuxuu meel magaalo yar oo wax tuulo yar bay wada wataa garow aanu lama sheekaysanayo inanka yari geda ka yimi madaxweynaha sheeganayaan lama sheekaysanayo ninka kaliya ila hadli karaa waa ninka hawiye muqdisho ka yimi ninkaasaa ii dhigma ninkaasaa shalay toole calan aan wax isku darsanay haddaan maanta tukaraq xataa aniga hawiye noo talo daarad waa langaab waa nin doon ku yimi su'aaliga dhul igala sheekaysanaya doon ku yimi wareer waa langaab shalay soo galay magaalada ninka kaliya waxaan ku idhi dood ila soo geli karaa waa ninka hawiye ninkan tuulada ka yimi waa inaad meesha ka saarto horta kan waaba basaas I don't know why meesha lagu soo galay kan waa sultan marka waxaan rabaa inaad jawaabta ku laabato jawaabti bal eraygan waa qoran tahay UN ku qoran tahay ma oranaya dagaalku ilaa tukaraq uu soconaya dagaalkii ugu weynaaba soo socda waan gartay soonka hadda maalinta khamiista ee jimcaha waa iid baa la isku hayaa wax yar baa ka dhiman iidda bal ku soco war iidii waxaad sheegaysaa waa maxay war waxa ku idhi niyahow waa kii la isku baabi'i lahaa ma maqashaa weli muu dhicin karin oo reedi waxa qaxday 150,000 oo qof sarab kaliya waxaan ku idhi garowgana way ku xigaysaa anaa baraya sida qaxitaan ku xiyay kuwan markii hore anaa ka qalleeyay garowga maantana muusaa bari doona waa tuulo yar walaal waan kor taaganahay maanta waxaan sugayaa ilaa maaragtaa inta ay soo weerarayaan aniga anaa gardaraystay anaa tukara qabsatay xoog baana ku qabsatay waxaan ku idhi farmaajo la shiriyey garowe sheeka daarood bay wadeen waan u jawaabay xoog baan ku qabsatay ilaa hadda cid ii jawaabtay maan magaaladii anaa haysta waxaan dib uga laabanaya male cidii celin kartana male yaa celin karaa waayo ninkay dhahaya laabo adduunka xataa waa ka diiday United Nationka waan diiday 3 mar baan diiday nabadna waan rabaa anigu oo guul baan joogaa horta kow waxba iima dhinna magaaladaas aan u baahnaa tuulada yar baan u baahnaa tukaraq waan u baahnaa
hawshooda ay halkaa uga wataan ay puntland uga saaraan waa lagu yar guumaysanaya marka aniga taa rag baaba lasoo dhiciyay okay sultan waa kaa dhamaatay istaag marka shantaa daqiiqo waa kaa dhamaatay sultan adoo raalliya waa kaa dhamaatay ku soco abwaane insha allah haddaan ku socdo wuxuu yidhi balaadh waa faral maadaama abwaakii meesha fadhiya marmar inaan yar dhex gelinno balaadh iyo dhulkii baaxadlaa lagu badhaadhaa balaadh iyo dhulkii baaxadlaa lagu badhaadhaayo bulsho farabadnaataa nimcada ka aqabeeshaa bulsho farabadnaataa nimcada ka aqabeeshaaye beel yar lama aqoonsado hadday gaaru baxayaane beel yar lama aqoonsado hadday gaaru baxayaane beentaadi waa lagu lugoay muuse saabiri beentaadi waa lagu lugoay muuse saabiriye beerkooda idoor hadday kula bilaayeene bal u fiirso gaalada sidaad ula bahaysiisay bal u fiirso dhaqanka iyo siday diinta uga baydheen bal u fiirso gadabuursigi iyo baaqa habaryoonis bal u fiirso boorama iyo baaqa habaryoonis bal u fiirso buuhoodle bal u fiirso buuhoodle iyo buuqa cerigaabo bal u fiirso buuhoodle iyo buuqa cerigaabo adduunka waxaa weeyaan waxaa ka jirta wax la yidhahdaa qawaaniin derbi isku qaad iyo indhala'aan iyo waxaad rabtid inaad iska tiraahdo ama iskaga hadasho horta kama shaqeeyaan aadna waxaa la yaab u ah ama mataqaanaaye wax maskaxda ka weyn ah ummad dhan oo meel ku noolaa oo waa la aqoon jiray in dadku hal mar ay arkaan dalabendelka ku dhacay iyo halka ay marayaan macnaha waxaasna waxa sabab u ah waa la iska garanaya waa afarta beenaale ee xerada ku ootay dowladda ahee jirta ee xididada leh ba haddii adduunka ay ka weydo ictiraaf in la ictiraafo ama mataqaanaa ay xidhiidh ay ka weydaa adduunka intiisa kale bay dowladdu shaqayn weydaa waa cunaqabatayn cir iyo dhul ah haddii maanta dowladda inta deriska la'ah iyo inta dibadda ay mid calaqaad la yeelan weydo bulshaduna waa saasoo kale bulshada hareeraha ka xigtaa haddii ay hal dhan ka wada marto ama ay dhibaatadood ay qaabka dhaqan xumadooda iyo waxa inta loo fiirsado la takooritaan lagu sameeyo waa waxa bulsha ay ku baabacdo horta dadkaan nala hadlaya bal ilaah baan idinku dhaariya iyagaan makhraati uga dhigaya waxa halkaan uga xiga waa ogaadheen waa ani dhinacaan waxa uga xiga waa puntland dhulbahanto oy deris la ahaayeen waa kan maanta waxa weeyaan waa ka guurnay dib baan uga gurannay baashi baan tegaynaa ay hadda soo dhigahayaan halkan waxaa kaga xigay gadabuursi iyo boorama oo waa la arkaa ciisihii baa shalay toole halkaan dhahaya deeqdii aanu ugu deeqnay dadka duwaagii bay tukaraq geeyeenoo ku kacsan dowlad baa marka shaqayn weyda haddii ay dowladaha kale xidhiidhin waayaan dadkan marka horta iyaga ayaa mataqaanaa go-doonka iskeliyey muuse saabiri baana u horseeday midda labaad diintii baaba hadda waxay ku tahay daciif wataa tii garaabada cunaysay habar jir ku hayaa in lala qabay moodaabay mahmaan soomaaliya ahayd tii garaabada cunaysay wataas ta la hadlaysa waxaysan aqooninba wallahi inaysan aqoon baa laga yaabaa ama aqooninba dhahaysa mataqaanaa tii gar sababtoo ah qofku waxaa la yidhi bidda intaada bidda dhiibu bidda ku dhahaa wataa dhahaysa garaabada ku cunaysa waatan haddana maqraati furaysa dhahaysa annagu kiniisad annagu mataqaanaa gaalka iyaga iyo waxaanu luqunta ku sidanaa khaniiska iyaga waa kana ku dhahaya koobil allaha cadaabo abwaane sultan ukaadi waxay radhamadise sultan ukaadi waxa ku gubayaan ogahay aniga ma ku gubaya dhibta uu kuu geystay muuse saabiri oo aan dowlad soo wadin waxba aan keenaynin 7 sannadood kugu dul furtay waxa weeyaan tukaan annaga waa annagaa si dhib yar ugu gabyayna waxa weeyaan balu fiirso buhoodle iyo baaqa cerigaabo balu fiirso gadabuursigiiyo baaqa habaryoonis puntland hadday sii jirto oo buubtay la yidhaahdo 100 sano hadday joogto oo laba baxnaaneeyo baarlaman aqoon leh iyo haddii minister loo baadho bisha may dabaaldeg iyo farax loo bannaan baxo biliglaysa maradii yaray oo loo buraanburo buluugaba haddii ay nacdo
oo cugdad lagu beero biilka waad ka heli adigu waa meheradaadii ee burcase qaran ma noqonaysa iyo beel hargeysa waxa weeyaan waa sacab calaacashaadtima may ka soo baxayaan soomaaliya soomaali baa leh adigana haddii dhaqanka iyo diinta aad ka tagto in yaroo kristan oo waxaad noqon aanu meel ku takoorno si aysan faafitaan ba aynu u samaynin awoodeedna waa leenahay ilaahay waana siiyey ma dhacayso waxa idinka aad rabtaan ama waxa idinka niyadiina ay ku jirto ilaahay dalka bandaarood kuma beereenba maba keeneenba haddii ilaahay wixiina uu aqbalayo abwaana waa ka dhamaatala ku istaag dilaac dhahaya abwaana ku istaag halka sultan ku soco waa ninkan dumarka u jawaabay waa nin raga kula hadlaya aniga ii jawaab maxaa inanta u doonantay anu su-aal baan ku weydiiyey waxaan ku ihi sheekadan waxay u taallaa koonfur iyo waqooyi adigu etoobiyaan baa tahay adaa sheegtay ninka etoobiyaanka walaalkaabaa etoobiyaanka ugu yeedha oo farmaajaa ku yidhi etoobiyaan baa tahay oo walaalkaabaa kula midoobeen oo waxaan ku ihi walaalkaabaa argagixiso ku yaqaana aniga markaa maxaad igu khasbaysaa inaan walaalkaa la midoobo walaalkaa adigii rabay inuu la midoobo inaad la midoobday argagixiso ku yaqaana aniga marka maxaad ii waalaysaa odileeda ula midoob adigiibuubu diidan yahay be horta taa iga jawaab kow laba adigu etoobiyaan baa tahay hayla sheekaysan dadka soomaalida wada sheekaysanaya soomaaliba ma tihi xadka soomaalida waad ka baxsan tahay caddayna waan kuu hayaa farmaajona weydii farmaajo weydii waxa tahay adu etoobiyaan baa tahay soomaali ma tihi marka hayla sheekaysan soomaalinimana haygala sheekaysan anigaa soomaaliga ah hargeysa calankii ugu horreeyey soomaali anaa ka taagan jigjiga lagama taagan jigjiga waa meel 2018 tigraygu guumaysto unfortunate haddii anigu maaragtaa maanta aan dal aqoonsi ah aan haysan lahaa waan ku xoraan lahaa wallahi anaa kaa xoraan lahaa 3% tigrayga oo dumarkaaga umaad geyseen oo adigan dumarka u jawaabayee dumar orniyo dhegaysaniyo hayla sheekaysan aniga war waxaan ku idhi niyow aynu u soo laabano inta soomaalida ah dagaalkan wuxuu waa dadkii soomaalida ninkan etoobiya meeshaa iyo jigjiga iyo isagoo halkaa ka soo calacalo marba gabay habar yoonistana aad la hadlaysaa anaa kula hadlayo anaa habar yoonista waxba ha baqin waxba isaaqa kala dhigdhigin meesha waa isaaq iyo daarood iska daa reer awdal anigu kuma weydin dhulbahantahan iyo waxaana iskaba daaba adayba kaaga ordayaan anaa kaa badbaadinaya walaaladaabaa kaa soo ordaya gun inaad tahay may fahanti marka habar yoonis iyo waxaad iskugu rartaa waa fulaynimo laakiin adugu calaa kulli xaal waxaan ku idhi niyahow aniga ninka ugu laandheeraysa soomaali waa aniga ninka igu xigaana waa ninka hago maanta labadaas ummadda soomaaliyeed oo dhan isfahan la'aan anigii hawiye naga maaragtaa in yaroo isfahan la'aana ayay waxaasoo dhibaataa u maraysaa labada laandheere maaragtaa waa labadaa anugu marka aniga hawiye heshiino ayay soomaali degaysaa intaa ka hor soo maaha anuguna kuwan waa xasuuqayaa garow waa hadda kor taaganahay hadday neecdadayn waayaan adeer dee waxaan ku idhi garow waan qabsanaya meeshana caasimadda ku sheegayaan ee tuulada waan qabsanayaa lacag burcadbadeed baa lagu dhisay calaa kulli xaal niyahow ma ninkaa hawiye aan isfahanay markaasay soomaali degaysaa hawiyena waxaan isku fahmi laanay hawiye waxaan jaale hawiye anigu xadkan in la soo celiyaan rabaa haddii kale gaalo awood maraykan maxay caydiid ugu yimaadeen waxay og yihiin caydiid inuu ka soo horjeedo xadadkan caalamiga ah marka haddii aynu nidhaahno soomaaliyaynu midaynayna inagoo awoodan leh jaale hawiye sidee markaa maraykan iskaga celin karnaa sidee xadka etoobiya u qaadaysaa sidee xadka kenya u qaadaysaa soomaali see u midaynaysaa anigu waxaan idhi niyo xadka aynu soo celinno ilaa intaynu awood aynu yeelanayno anigaa soomaali u fikiraan ku marka aniga hawiye intaa anigu waxaan gartay hawiye waa isku fahmi weyne xadkeygii baa soo ceshay maalifna waan suganayaa ilaahayow miyuu waxaan ku idhi wax walba imaadaan cid hor istaagi karta male walaa garoowe walaa farmaajo walaa waxaan ku idhi waxaanaad rabto iskugu yeedho alaacalka halkaa ka wada anugu kii hor imaada 27 sano u diyaar garoobay ruulkan iyo systemkan aad sheegaysana maba garanaysa adaanba garanay adduunku soo shaqeeyo adduunku waxa weeye walaalkaa wuxuu ku leeyahay argagixiso waxa weeye xal caalami ma dhaqaajin karo adiguna waxaad rabtaa inaad la midoobo anigiina waxaad leedahay la midoobo marka united nations horta iyo adduunka iyo soomaali sida loo kala qaybiyo ismoogo ninka waxaasoo dhan laba nin markay heshiiyaan ku ducayso inay hawiyada isaaq heshiiyaan si ay soomaali nabad u hesho
oo nolol ay u hesho haddii kala soo maaha midnimadu anay awooddeeda ku jirtaa xadkan anunbaa qaadi kara anunbaa dhigi kara hawiye waxba kama samayn karata been buu isku sheegay halkaasaad ku wada jiraysaan hawiye daarood cid walba iga warsugaysaa waxaan ku yidhi ilaa maalinka aad ogolaataan waxaan idiin hayo taasoo ah in xadkan la soo celiyo war ma iska celin kartaan maraykanniyo caydiid iyo ummad baa ogaatay oo maraykan ugu yimid anaa mideeyey soomaali aniya hawiyaa mideey irir soomaalaan ku mideey haddana 9 sano gudahood faqas bay noo soo dirtay maraykan awooddu waxay idiin sheegayaan suldaan halka ku istaag suldaan istaag waa ka dhamaatay may waa ka dhamaatay oo kugu soo laabanaysaa istaag may waa ka dhamaatay istaag de istaag abwaan waxay idinkeeda adnaa shacabka waxaan u sheegayaa doodan markay dhammaato facebooka dib uguma arkaysid youtube ka daawo doodan markay dhammaato ay dhammaato inta live-ka daawato ayaa la dhahaa allah ku anfaco inta kale oo jecel doodan inay dib ka dhegaysato waxay ka daawo karaan dhinaca youtube-ka gala halkaas ka daawada si aad dooda u dhegaysatiin laakiin facebooka dib uguma arkaysid facebook inaad ka daawato mar labaad waxaa waaye habeenkii xalan tega waaye isla marka waa laga saarayaa shacab waxaa ka saaraya isla marka diyaarsan baa isla marka ka saarayo markaan saan uga baxaba dooda way ka saarayaan markay ka saaraan youtube-ka ka daawanaysaa youtube-kana magaciisa waxaa la dhahaa xasan xirsi baa la dhahaa ku qor halkaas ka raasida dooda youtube-kaasna subscribe saar halkaasna kala soco dooda shacabka taas baan u sheegayaa doodan waa mar kasto ilaa lagu kala baxayo somaliland iyo puntland ilaa lagu kala baxayo dooda waa soconaysaa laakiin dooda markay dhammaato facebooka anigu kama saarayo dad waxaa ka saarayo shaqadooda ay tahay inay ka saaraan isla markii markaan dhammeeyo aan dhaho dhaan dib uma arkaysa doodan marka waxaan u sheegayaa shacabka xalay iyo habeen hore shacabka marka waxaan u sheegayaa dooda dib inay ugu daawadaan youtube-ka abwaane daqiiqadiiaan ku fiiriyey haddaa ay maqlaysid 5 daqiiqa ku bilaabatay ku soco abwaane okay waxaan maqli jiray habar dhali weydi aleele ku waalataa may ahay waxaa weeye horta idoor markay cir iyo dhul iska soo oolaan oo waxa weeyaan ay haraadaan oo xaaladdu jiq ku noqoto ay daba jiir gasho bay waxay xasuustaan mataqaanaa hawiye iyo cali garuura ku waashaan horta hawiye iyo daarood maanta iyaga alla isa siiyey oo calanka buluugii ka dhexeeya meel walbana jawaabtooda waad ka aragteen dhibaato waxaa dhacday halhayska soomaalidu ay leedahay tidhaahday ee sidii arab u jabay arab waagaa wax dagaala cid la gashay ma jirin arab waxay sameeyeen dadkii u dhawaabay wada xumeeyeen dadkii u dhawaabay mataqaanaa waqti xaaladdu nabadgelye iska tahay ceelna muuna lahayn arab iyaga oo aan ceel lahayn bay xilligii barwaaqada ay ahayd bay dadkii wada colaad gashadeen waxaa lagu yidhi ta ay u timaadeen guurtii iyo odayaal qabiilaadad kala socdaa waxaa la yidhi arabow dhibta daaya ceel geelmalihiidin doogganna waa qalali doonaa xaggee u aroori doontaan naw arma anaga biyo bartaan ka soo saarina adigu waa isxaraajiyeen jiilaalkii markii la gaaray arab cidla ku dhinteen macnaha sidii arab u jabayna la maqlay dagaal cidla gashay ma jirto meelay ka cabaan iyo meelay u arooraan bay waaye taana waxaan ka wadaa inaad meel aad ka cabtay iyo meel aad u aroorta weydo horta maanta adigaa isbaday ana alxamdulilah leeyahay maqraati waxaan uga dhigayaa dadkii masaakiinta ah hawiye kuwa aad maanta leedahay shalay toole berbere oo dekadii lacagtoodii lagu dhisay ee markay ka soo degeen iyaga oo maati ah adiga oo aan dhaqan eegin adiga oo soomaalinimo eegin adiga oon islaamnimo eegin adiga oo diinta iyo dooriya eegay baad waxaad waxa weeyaan aad tidhi mataqaanaa kuma soo degayaan meeshaas maantana ha kugu taagnaata fakiyuu bay ku leeyihiin hawiye iyo dadkaad ka sheekaynaysaa hadalkaagana aad bay ugu raaxaysanayaan wallahi mukayfka ishda ku ka macaan baa ushda sababtoo awaa sida ay kula rabeen ayaa noocaas adaa cir iyo dhul iska ooday adigana horey ilaahay wuxuu kaaga dhigay laangaab marka waxaa isu timiday waaweynkii oo ku haya maanta iyo adigii oon meel calaqaad ma lahayn oo kaa dib u guranaya ah waxa weeyaan idaacadihiisii iyo websaydyadiisii iyo meel walba ay sheegayaan inay dib u carari doonaan
laakiin ballan waxaa ah oo lagu galay ilaa sidii waagii hore ay eraygii ahaa ee dhacay idoor weligiiba ha sii cararso badda soo celin mayso ilaa ay dhacday inaad meelahaad sheegaysa iyo gambadhaad sheegaysaa burcaad xitaa fadhiisan doonin taas waa ballanka noo yaalla ta labaad waxaa ilaahay lagu mahadiyaa waxa ay geysta mid ilaawa inaadan ahaynoo xasuuqlan magacaagu yahayoo anugu magac dheer aan yeelan doona maadaama aad after 25 years aad sii odhan doonto xasuuq waa lay xasuuqay sababtoo hadda xasuuqii hore hadduu sii duugoobayo mid kale aan dhici doona marka 30 sano ee soo socda ee dambe waa ku raaxaysan doona waa lay xasuuqaydaada taa hadda intaa kaga gudbo waxaa waxyaabaha isroonki macnaha khalabaadyada ugu waaweyn ka mid ah aniga haddii aan sanku igo-an yahay nin sanku aan wax kama sheegi karo marka waxaa yaab ah adigu meelaha aad inta u leedahay ama meelaha adigu aad qof walba uu kugu shaabadaya ama kugu yaqaana in aad ka hadasho taasoo tusaale haddii aan kuu soo qaado dhaqan xumo iyo mirqaan kama hadli kartid waxaa weeyaan halkaa waxaa caddaynaysa adduunka wax kasta waa loo codeeyaa adiga hadda meeshan ku jira fiirsa hadda halkaa communityga la soo qoraya waxaad fiirisaa inta wiil ee mataqaanaa ee dabacayuun ah ee gabadh cay u soo qoraya iyo inta wiil ee daarood ismaaciil jabarti ah ee gabadh cay u soo qoraya maba ku jiraanba wiilal daarood halkaa cay ku soo qoraya gabadh daarood waa sidaan gabadh daarood waa kan war gabadh daarood annaga la dhigata ilaahay baa sharaf iyo idgoon ka badiyey halka wax lagu soo qorayoo saan la yidhiina gabadh daarood waxba uma dhimi doonaan marka intaasi waxay aniga igu filan tahay macnaha waa sameecad darro adiga halkan kuu gelaysa iyo basar xumo una codaynaysa dhaqanka taa haddaan intaa kaga gudbo sadar muuqda waa su'aal madoon anigu ninka waxaan ahay wuxuu yidhi haddaan anigu liito oon yaraha laalaada dalsan iyo luuq butalkay ladan yaallaayo lisaamka kaa yimid hadday laydhu kor u qaado oy laliso wuxuu gaadhayaa qoon libaaxyo ah mar haddii suldaankii ladnaa soo lalaba weerar sida la xambaruuraya ilbaha loo kashaad noqonoo adaa lumaya mar keliya aan aarka ku abwaana waa ka dhamaatay raallahaw abwaana waa ka dhamaatay suldaan ku soco ninkan isagaa sukay xoqeynayo anigu ninkani ani isagu inaan wada sheekaysano waa mamnuuc bad waa khalad because waa laangaab waxay ahayd inuu ducaysto oo ku ducaysto inuu hooyadii ama inuu dawaalidkii ahaado hawiyaa meesa labadaa mid markaasaad doodan geli lahayd laandheeraad ahaan lahayd markaa war ninka waxaa ku tukara ragga ka shirayaa maanta waa muqdishiya hargeysa labadaasa shalay wax isku darsan anuu tuulo wax kumaan darsan anuu garow wax kumaan darsan anigu waxaan ku gado wax kumaan darsan laascaanoodna wax kumaan darsan muqdishoan ku darsan marka nin laandheeraaba wax ku darsan nin laangaaba wax kumaan darsan maantana haddaan waxaygii la laabanayo nin laandheeraabaan la hadlayaa inaad maa khaldanahay ma khaldani no muqdishoan shalay wax ku darsaday ninkaa laandheeraha muqdisho dagaal la sheekaysanaya waaba ku yasaya adiga because waxba ma tihin ummadda soomaaliyeed waxba kama tihin maanta midnimo xataa ma keeni kartid ragga keeni karaa waa aniga ninkaasoo wada hadalna intaasaa ku filan laakiin anaa diidan midnimada ninka diidan waa ninka reer hargeysa ayaa le no jaala hawiye maya marka adigu meeshan waad isku kay xoqaysaayo waraad waxaad sugaysaa markaan aniga ninkaas heshiino markaasaanu ka tashanaynaa sidaanu kuu xorayn lahayn sidaanu tigreega 3% ee 2018 ku guulaysanaya marka aniga ninkaasay noo taallaan labadaa laandheere ay soo tashtaan ay go-aan soo gaadhaan ee waxaan ku idhi dee aanu isfahno markaasaanu adiga ku imanaynaa dugaagyo aanu tigreega kaa xorayn marka hadda intaana ha isku kaya soo taagin oo nin laandheere ah oo dee magaalo sheegaan ku idhi 3 magaalaa maanta soomaalidu ugu khatarsan kooban kaaga soo bilaabaya waa jabuuti waa hargeysa waa muqdisho saddexdaas saac 3 caasimadooda halna daarood ma laha waa 2 dira iyo 1 dee hawiyaa maxaad marka ku faanaysaa ood rabtaa inaad igula hadasho oo nin reer hargeysa ah oo aad u sheeganaysaa waxa ku dhaama ninka samaroonka ah oo awdal buu haystaa oo dhul taariikhiya oo masaajid 2 qibla ah oo waxaan ku idhi ancient history taariikh qadiimiyu ku faanaya oo la arki karo oo waa dhulkii ay diintu ka soo gashay bal adigu daarood baa tahee waxaad tidhahdaa